maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلميني سو نقد وناكسن محاضرة دي هوري أستاذ أبو بكر محاضرة دكتور عبار waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in aan mataqaana ka faa'iideysanay hadda waxaan sii wadaynaa dhameystirkii kitaabkii koowaad oo taariikhda sidii la ku soconaynaa qaabkii maxaa yeelay waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yaraa inaan anagoon arkin Sayyidina Umar waxa laga wariyay gudoomiyaasha gobolada markii warqad u diray wuxuu dhihi jiray isifay meesha aad joogtid sidii anigu joogo oo arkaya amal bimaana yaani asoon meesha tagin wuxuu rabaa wasfi badan in loo sameeyo kitaabka hadda asoon wali ku soo gaarin waxaan rabnaa in aad ka dharagsan tahay si og tahay bari marka shaqada galaysidbo kitaabku waa istaqaaninbo maba kugu cusbaba haduu Ilaahay saasa Ilaahay ka rajaynayna haduu Ilaahay marka waxaan sameeynay kitaab kasto kulligiis moodo dhameyn karno waa ogtiin waqtiga la haysto laakiin sambalo iyo namaadij aan ka soo qaadanay oo mataqaana aan rabno in oo ala dawi hadhihi namaadij kitaabka ala hadhihi alwatira inuu ku socdo haduu Ilaahay marka mush daruuri in kulligiis aan akhrino hadii ila la fahmo qaabka uu ku socdo inta kale aad dhameystiranaay aad macallinka dhan meesha ka sii wadanayna laba waxdaan qaadanay waxdadii koowaad iyo waxdadii labaad haddana waxaan galeynaa الوحدة الثالثة وعنوان كذا وهي حضارات العالم القديم. هرت كتب تنسيب قرنتها هي أتبع لوجس وشقيه بفضل الله وعونه والسلسلة اسمه حرام سيدي كتيند أو كلوه يعني إن درسي كان لقاته درسي كلام اللون بوداي واسمه حرين درسي كلو كبا كانوا كلو كبا وحدة أساسه هاي سي أصاب بحضو فول كنت أركتي جود أصاب بحضو حضاروين كان لقى شيء هاي حتى وحقلنا حضارات العالم القديم وحدنا اسقبتوها حضارات العالم القديم وحده سدحاد marka sidii aan ku soconay lacilmikum markii namuudijkan lagu tusaayo macnaheeda kan bes soo qaadateen ma aha mid kasto oo hadaf mid kasto yuhaddid al-khasaa'is al-'aama lil-hadara al-misriya al-qadiima waa in laga wada helaa dhammaan qaybihi aan sheegnay kan kaligiis ma aha كان واسمبر لكن هذا صوت ديارنا كان كل وقت وحنا قاعدنا يوم هذه كان أفهمتي أهدافتنا ودن كتب كتابك وحقق سنتها هذا مركز وحن تسألك سوق قاعدنا عوامل قيام الثورات في الحضارة المسلمية القديمة هذا كان نموذج واحد الدنيا وحواي نموذج على صعدة وبالأمثال يتضح المقال الله تحت صال ولله حتى القرآن ضرب الله مثلا محاوي قس على ذلك كله هذه وحاربنا مركينا نقاشنا فاكترس مع عوامش كاني كعذونه إن كدعان حضارة مسارد إهورة كعذونه كدعي ذويا كعي ما معناه ذلك عظام حتى لو بالله ما هو اللي يسوي حضارات كانوا كجري إن لكعوا ذاتك مركي الظلم كبته سيدي متقانا وناقة لقى لحظة وحاسودن ذاتك بني آدم وواقعي وحأركي دونتين هذا كتبته كعظام بدن وين الثورة الأمريكية الثورة الروسية الثورة الفرنسية الثورة المغلي الثورة المهدي وحاسودنا مغلسة محاكينا أيوه خدك اللي وسعودي لقى لحظة ذاتك وحيلين مايا خدك اللي وصل النوم كعظام كساسي كان ربنا مركي إنا حقيقي جنة دولا إله نشاطك
haddaan waxyar ku soo noqonno kan hadda laga hadli doono asbaab qiyaam alxadaara almisriya alqadiima wey waxa dhaliyey ilbaxnimadii masaarida inay dhalato ayaa la xaqiijinaya maxaa keenay masar in xadaaradaas weyn oo ilbaxnimadaas heerka sare ay ka dhalato maxaa keenay maxaa sababay ma iska dhalatay factories waxaa jiro oo keenay waxaa ka mid ah xadaarooyinka waxay ka dhacaan waa og tahay meelaha biyaha laga helo waa kan naharuniil aa ilaahay siiyey deegaan juqraafiyeed oo istiraatiiji ah oo muhiim ah waa leeyihiin hawo ama cimilo dhexdhexaad ah qabow zaa'idna aan ahayn kuleel zaa'idna aan ahayn muctadilay leeyihiin aljuhd albashari dad yow wax qabto oo howlaha qabto afartaas ayaa waxay saaciday ilbaxnimadii masar inay dhalato biyihii mutawafir waay deegaankii waa istiraatiiji cimiladii waa mid lagu noolaan karo dadkii waa dad mataqaanaa intaanoo dhan markay ka faa'iidaystaan wax soo saari karo kaasaan rabnaa marka inaan xaqiijino استاذ عبار wuxuu noo sheegay manhajkan cusub waa manhaj ku salaysan child centered approach yani maxwariyada udub dhaxaadka waxbarashadan ardayga maxaa laga wadaa marka sidoo ustaadka noo sheegay waa ku soo baranay wax waa ku soo aflaxnay alxamdulillah laakiin hadda waxaan rabnaa in xoogow bal aan ka gudubno macnaheed in oo lagu caasiyey ma ah taqliidii waa lagu soo koray dadka dhan u jeedinoo dhan waxbay ku soo barteen laakiin hadda horaa loo soconaa maxaa la rabaa marka macalinka juhdigiisina in la tawfiiriyo ardaygeena mataqaanaa mustawihiisii kor loo qaado maxwariyadu waxaa waaye ardaygan awal iska fadhiyey macalinka le wax akhrinayay sharxay wuxuu raba samaynay hay ma fahamteen haa waa baxay inay fahmeen muxuu ku xaqiijinay markii imtixaanka la gaaro bas soo baxaysa laakiin manhajkan wuxuu la soconaa cashar kasto oo macalinka bixinayo ardaygii laftirkiisa yaabasha mataqaana aan la qiimaynayo hadda marka casharkii dhexdiisa wuxuu leeyahay ardayga hadlaa fiiri macalinka maaha uqayimu tacalumi ardayga waa loo sharxay casharkii wuu dhageystay asaa wuxuu leeyahay anaa isqiimaynaa marka wuu fahmay qofka hadduu isqiimaynayo casharkii wuu fahmay baynamaa tii hore maxay ahayd ma la fahmay casharka macalin waa la fahmay maca salaama xisada dambe ay ahayd tii hadda waa isbedeshay ardayga wuxuu leeyahay adkuru anaa sheegaayo xusaayo باختصار سكوبر عوامل قيام انت سو شيغا ان سو شيغ haduu soo sheegay maxaan fahmaynaa marka inuu ardayga fahmay maxaa u daliil asaaba sheegay hadaf xaqiiqoobay waa marka ardayga yaa sheegay waa kana niilkii juqraafigii adduunkii uu sheegay marka waxaan dhigi karnaa waa la fahmay okay ardayga marka qiimeyntiisa ku jirta su'aalihii markii la weydiiyo oo la dhaho naaqish cawaamil حوجو ماشي قال ديالك كجر هذا عدد اسباب قيام الحضاره المصريه القديمه سوتر وحيابها دليي البحنمدي مصر ee hore inay soo ifbaxdo maxaa keenay ma dhulkay budka soo tiri maya cawaamil kanti waxa kasta waxay leeyihiin cawaamil ardayga markii la weydiiyo marka wuxuu soo sheegay aan soo aragnay inuu yaqaanabo maxaa jira asaaba dhahay adkuru ana cawaamil qiyam الحضاره المصريه markaas soo tiri marka waa fahamnay انت هذا نماذج اما نموذج وحن كدغني الوحده الثالثه ومتقان الحضاره المصريه القديمه اهدافتي انك هدفكم حوق اسارنا horta su'aasha taas way لماذا 10 كذا اخرين دون ارday asa akhrisan doon laakiin ahdaafti ma noo xaqiiqooday marka anaga namuudajkeena dhan wuxuu ku salaysan yahay war hadafkan ardaygan wuxuu meesha u fadhiyaa horta oo waqti ugu baxa oo macalinkan juhd u bixina hadaf jiro wax kasta ujeedada laga leeyahay ardaygan ujeedada ma xaqiijiyay macalimo adi 10kii waa sharaxday mutaqaana input waa gelisay mudkhalaada gelisay mukhrajaadkii aragta mukhrajaadka imtixaanka lama la sugay marka maya waa sanad manfaci sanadka inta u dhaxaysa wax ma fahmo
waxaa ku sheegi kartaa marka manhajkan cusub wuxuu kuu sheegaya war cashar kastoo macallin oo aad bixisid adoon hadafkii xaqiijinin casharkaas ma dhammaanayo marka saasaan xoog u saaran ahdaaftaana muhiim u ah camaliyada tacliimka namaadijka marka waxaan soo qaadanay hadhow macallin waxaa laga rabaa ahdaafta meesha ku qoran ahdaafta koo waxay ka bilaabataa waxdooyinka fi nihaayati hadihi alwaxda yatawaqac min ataalib ahdaaftaas waxaa la rabaa inaad ka xaqiijisid ardayga see namuudajkan hadda aan tusayno oo aragtay aad ku samaynaysaa waa inay ku jirtaa waxdadii casharkii naskii nashaadkii iyo as'iladii inuu ku jiro markaasaan dhihi karnaa aleeleh ardaygii waa fahmay casharka marka hadda kaas asna waa nagu filan yahay waxaan ku wareegaynaa نموذج كله أو الوحدة السابعة أو الشخصية الصومالية عشرة اللي نوجد في هذول الهيرة كاسان قلنا هذول الهيرة إيجار كصومالي أو الشخصية الصومالية أصل كور هذا اهتمام يو يحسب هذا اللي لكن أول سنة أنا اهتمام سنة لهين سلا سنة مركز الشخصية الصومالية وحدة التضباط عشرة اللي نوجد فيها وايد درسيان مركان قادن الشخصية الصومالية أو نور دماغ أردك محاك ربنا من اسكت الرجلية وحي آخر يميا بس إنه وحفهم نبادش كان ولي بس عنا وحاربنا عشرك وحنا وجرو مركي سمات كود كل وأركض الناس الله شكي عوامل مؤثرة في الشخصية الصومالية وحجر عوامل سامين كله شخصية صومالية أجرو هدف كان مركب حربنا إنك حقيقي وحدة وكو أرني عشركي نسكي قيمتي يو أركين هذول الهيرة نشاطك أرضي أسيا واكنا ولي محورية الطالب أفكر أنا وأتأمل العوامل المؤثرة في الشخصية الصومالية مركو سان لي يا أرضي أول حديث فكر وتأمل لكن مركو أسده أنا وكيف كراي وحوس صار مسؤولية عصب إنه وحي قارو الربا لكن أول أذان لها يمحو هاي سانيال أسيقا لها ورأنيها الربا إنه كيف فكروا عوامش سامنت كله شخصية الصومالي وأكبرك الشخصية الصومالية تعاني مشكلتين أساسيتين لابد مشكلة قفك الصومالي هيست قفك الصومالي وياه إلا من رحم ربك كو ازدواجية الولاء ولا جيسة أما الجريتان كيس أو مزدوج شيء يجعلها اسم مركز إنما جعل هذه هي المشكلة واحد الشخص الصومالي يمجد شيئا ولا فاننا ويقوم بنقيضها في نفس الوقت بري وحركة شيء وفاننا أصلا هذا حق شيء جاي قالوا يقان صومالي محاجر وحبذنا سامينايو صومالي قبيلة اسكجرتو دانا شخصية اسكجرتو نين مسؤول وشالي فانناي مركو يحرب وكواي بري وعانا كاس دد ما هو ليا ازدواجية سوانا هيستا وانا أبضلنا إلا أنتو إله ونحرستنوي وانا هيستا شالي ولحو فانناي ما أنت وحي وحك الشيقة ازدواجية تقديس العشيرة وانهو انتهي قبيلة وانهو انتهي هذه هو انتهي ورن دينعس ايجابي هدي laga fiiriyo reerkaaga iyo waxaaga in mataqaana oo ku xirnaatid waa la ogol yahay المصدر الاساسي للامن والهويه والشخصيه هذا حتى وارagteen waqtiyada markii waxaan dhaceen qof kasto sheekh iyo wax raba ahaado markii wax dhaceen dadkiisi u noqday ما في مشكله u noqoshadaas maxaa yeelay taqawi الرابط العائلي واسku xirnaanta oo family ay saameyn ku leedahay وتوفر شبكة أمان في أوقات الحاجة مركا وحبها تدنا وقع عن سيناء أهلا وسهلا تحديات وين نحن وقت ماذا القبيلة والقبلية لو معنى كلام قبيلة إيجابي وقبلية سلبي وهي قبيلة هذه مديدة كرت إنا جعلناكم شعوبا وقبائل إلهي باب الشاقب لماذا لتعارفوا الجديد وحا أروسا أبو بكر يو أروسا أبو بكر عداس وحا أروسا قبر عداس إن اللي سكون برد تذكي حدودوبان وحاسو دون أما القبلية جانب سلبي قوي قبيل إن وحلو قيمة أو كفاءة وحبا أنجر قبيلة لو قيمة كوان إسكوريرا نهي وفي عين كواس إسكوريرا ما يكاس
النبي ودي على تحدياتك محايل قفك ولا جيسة وحكور مرينا يا عشيرة ديسة هلكي أكور مرين لها ودنك أولم وحكي وين قبيل كيس مدح وين يا هبل مربنا محاجر قبيل كي جماعة وين عاد واللي هذا آخر سنة كتاب كله جذور النزاع الصومالي في الصومال ونن حلبان أو قري هذا أفهم مثلا قبلية هيرك أن كمرين يعني مدح وينها قبيل كيس مركي شيء قبيل كيس أنا قاعد على النهاية ما يلين مركيس ما يلين أدعبه تاس مركب معه دين معه نبقى كان تواكل حيث يعتبر العائلة حماية له عند الخطر نين كان قبيلك وقول جاي هاي وحيقتها حماية يمرك خطر كتمات حتى لا يواجه تقلبات ولذا مركب فإنه في ظل شروط الدفاع والمعونة بين أفراد العشيرة يؤدي النظام الأسري دورا هاما أوكي ما في مشكلة وحد عيسى مركب حلبانا لقدقي وزيرة لقدقي odayaashii oo qabiilkiisa soo rashaxeen yaani ninkaas marka hadhow wuxuu bilaabaa qabiilkiisa inuu si gaar ugu adeego qabla alwatan maxaa jiro wuxuu ogyahay cid meesha keentay ogyahay wadan ma keenin qabiila keen saas aqliyadaas ma la rabo ardaygan in laga fahamsiyo la rabaa oo ku koro nidaamkan oo yaani oo xadaariga ah in lagu koro rabo oo qabiilka ha u dhasho laakiin qabiiliya inuu san adeegsan okay waa kan qiimeyntii noogu jirta oo cadid yaa hadlaaya marka إيجارك أرضي آيات الله ملما أمرن وحبل وما قصبن أساكو ده يا أستاذ أنا وعد العوامل المؤثرة في الشخصية الصومالية فرط التاجا مرك إيجابي هو إنه أرضي الشيء نتصو إنه فهم جهد أم بحني أو بودكيسي أم خرجات كيس أنا قبل حتى عرفت كأنه سؤالي وسوقلي هذا سؤالي وسوقلي أهدافتي كلهم ونوت الله لكن كي أنكس عني اتصالها هايوان عدد العوامل المؤثرة في الشخصية الصومالي تري عوامشة سامين تقول شخصية الصومالي أرضي واشاقي بأسا شاقي أرضي أساب شاقي محاجر حكسو شاقي ما أنت أنا شاقي معلنو وابكو كل سرت معين استاذ أنا شاقي إيجابي هو بينما أول واحد هاي يا شيء كرم هاي عوامل مؤثرة في الشخصية الصومالية يا شيء كرم أساس بديني ما يا أستاذ أنا بشيء جاي كل هاي أرضي كتب كل أنا شيء جاي كتاسوا سؤال ما كان بديسي إنه كجواب كرم حكوا أوقاتي وحكوا صامر تقية ما أنتي إيه نشاطك وحيرنا كسو أوقات وأرضي كرتا مركا ولا فهم درسك بارك الله فيكم وهذا ما سنتين وأرضي كرتا maxay tajaawub waxa la helay ardaygii iyo macallinka oo tajaawub sameeyay halkii macallinka awal uu ahay oratoraha asil dhageysanayo ardayga soo galay ustaad ana sheegay ustaad ku haya marka maxuu talibka la sheegay waxa waaye ma aha macnaheedu booska macallinka uu galay ee u fahmay macallimiinta macallinkii oo gala meeshii ka boobayo oo mataqaana macallin waxba ma ihid ma macallinkii wali makaanadiisa sharaftiisa uu leeyahay laakiin hawshii uu qabanayo oo dibka badneed oo juhdiga badneed aan laga khafiifiyay oo waxa la yiri ardayga kula wadaago macluumaadka waxaan ogtihiin macallimiinay ardada hadda aan dhigayno ma aha ardadii hore arday xalay soo galay adduunka oo dhan waxa ka dhacayo internet galay oo wax ka soo ogaaday oo casharka beri la raba xataa internet inuu galay wax badan ka soo ogaaday amaanta wax sheego hayno laga yaabay xataa inuu ciriiri gali aqoontaada xataa oo su'aal baxad ku weydiiyo maxaa yeelay ninkan naftirkiisa waxbuu soo baaray ardaygaas ala tacaamulaysa marka waxa waay tacaawuni تعلم تعاوني اسكاشنينا ardayga waxa leedahay ad naftirka inaan ka faa'iideystaan raba ayb ma wala kala faa'iideystaan macallinka sharaftiis asoole hadana mataqaana tawaaducas inuu muujiyo oo dhaho ardayay ana inaan ka faa'iideystaan raba waliba waxaan rajaynaynaa marka hore oo galaysid ardada ha isu tusin ustaad oo nazala min al-mariikh oo mataqaana oo wax kasta daadiye ma حتى واتل يراهدو العلم بين التلاميذ ardayga يعني ما la qursan karo ardaygan qaar waxa ku jiro xalo dhan ama ayaamahan oo dhan baxthi ku sameeynay oo wax raadinay oo casharada intaqana diyaarinay ardaydaas hadda aan wax barayna marka waa inaan la tajaawabna waxa dhici karto waxa oo aan sheegayno inuu yaqaano laakiin waa cabsana laakiin hadda ooda u furaysa waxa leedahay arday you نوشر حتى قارس استاجنا نوشر عشان
tajaawubkaas oo isqiimeynaya ana ata'ammalu iyo hebelu waxay ka tarjumaysaa ardayga udub dhaxaadka la sheegay laakiin macallinka aawe macallinkii bas miya buul miya meel buu fadhiya maya macallinka leeyahay hadda waxa arkaysaa kitaab kasto ama muqaddimada istiraatiijiyada tacallum waxa arkaysaa ardayda in loo qaybinayo groups majmuucaad afar shan hadba fasalka soo yahay tirada ardayda marka la qaybinayo macallinka hagaayo ardayda ku wareega haye adinka su'aashiina ma diyaarsateen ka jawaab ma instructor waay marka taas marka waxay keenaysaa ardaygan inuu u leeyahay oo ku faraxsan yahay macallinka naftirkiisa oo faraxsan yahay oo casharkii uu bixiyo dhan waa isla fahamsan yahay marka insha Allah taala hadda waxaan u soconnaa qaabkii hore in la caayo ma ama la cambaaray ma waa fiican yahay laakiin qaab kasta oo waxa la arkay hadda oo ka fudud oo mataqaana oo ka hormarsanaa la arkay ما فاهمينه كاسا مركو كسقونينا 10 كستن وحو كسليسن yahay محوريه الطالب كاس اساهد لاي اكتب افكر اتامل اذكر اسادهاي marka taas macallin oo marka adi haga tahay saas oo la soco hadana 10kii kale meeshas aan ku soo koobayna waa ogtiin waxaan lagu ma dhameyn karo saacada yar إن شاء الله وقت بدنا هيسنا وصفي عن أو درجة دونه بالإضافة إلى أذيك أو كتابك لفل قلي دونه وهدونه متقانا صفي عن أصاب درجة دونه وإن شاء الله تعالى وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.